Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kusoo dhawaada channelka Garage. Tuuga walba oo adduunka ka jirta hadafkooda kaliya ayaa waxa ay tahay inay wax dhacaan, ha noqoto lacag amba dahab amba waxyaabo kale. Haddaba muuqaalkeenan maanta waxaan kugu soo gudbinayaa tuugii ugu dakhliga badnaa amba ugu taajirsanaa taariikhda ee wax dhaca. Waa Pablo Escobar. Waa kuma Pablo Escobar? hamigii iyo naxariis la'aantii sayidkii reer Colombia, Pablo Escobar wuxuu ka dhigay inuu ka mid noqdo kuwa ugu taajirsan, ugu awoodda badan, uguna rabshada badan adduunka. Pablo Escobar wuxuu ku dhashay December 1, 1949 magaalada Rio Grande. Aan garanaysaan ugu dhawaaqay, laakiin magaca halka wad ka akhrisan kartaa ee Colombia. Aabihiis wuxuu ahaa nin beeraley ah, hooyadiina waxay ahayd macallimad dugsi hoose dhigta. Pablo wuxuu ahaa mid fara ku tiris ah, xitaa intii uu iskuulka dhiganayay wuxuu xadi jiray dhagaxaanta qabriyada isagoo iib geynaya taariibayaasha ugana iibinaya qiimo aad u jaban. Waxay ahayd riyadiisii carruurnimo inuu noqdo milyaneer caan ah. Horaantii 1970kii wuxuu isku bedelay tuug iyo ilaaliye, wuxuuna si dhaqso leh uga sameeyay $100,000 dhinaca afduubka, madax furashada madax ka tirsan Medellin ka hor inta uusan soo gelin suuqa amba ganacsiga daroogada. Tallaabadiisii xigtay ee salaanku waxay noqotay inuu noqdo milyaneer isagoo u shaqeeya taariibayaasha Alvaro Prieto. 1975 Escobar wuxuu bilaabay inuu abuuro boqortooyadiisii kookinta. Markii hore shakhsi ahaan wuxuu raaci jiray shixnado u dhexeeya Colombia iyo Panama si uu taariib ugu geliyo Mareykanka. Markii dambe Escobar wuxuu yeeshay raxan diyaarado ah iyo helikabtaro oo ay ku jiraan Learjet iyaguna waa diyaarado. bishii Maarso 1976 da'da markii uu jiray 27 sano jir, Escobar wuxuu guursaday Maria Victoria oo ahayd 15 jir oo iyadu u dhashay 2 carruur ah. Escobar wuxuu iskaga jiray dhismo raaxo leh oo loo yaqaano Hacienda Nobles. Isla sanadkaas waxaa qabtay mas'uuliyiintii Colombia isagoo haysta daroogo. Si kastaba ha ahaatee, ninkani kumuusi negaadin jeelka uu ku jiray, isagoo laaluushayay saraakiishii soo xirtay kiiskiina waa uu burburiyay dhammaantiisba. Escobar waxa uu la shiraakoobay 6 ganacsadayaal oo ku ganacsada si sharci darro ah, kuwaasi oo ka yimid aagga Medellin. Escobar waxaa aakhirkii xukumay in ka badan 80% maandooriyaha loo soo dhoofiyo Mareykanka. Wuxuu ka mid noqday 10 qof ee dunida ugu taajirsan. Kuwii aan laaluush bixin karinna wuu dilay. Boqolaal laga yaabay kumanaan kuwaasi oo ka tirsan ciidanka booliska ayaa lagu dilay amarka Escobar si fudud shaqadooda iyagoo gudanaya. Haddaba waxaad odhan kartaa ninkani Escobar waxa uu ahaa dambiile aad u weyn. Sidoo kale wuxuu geesi u ahaa masaakiinta Medellin. Wuxuu dhisay dhismayaal badan, cisbitaallo, iskuulyo, kaniisado, garoomo sportska lagu ciyaaro, wuxuuna si joogto ah lacag ugu qaybin jiray masaakiinta. Xitaa wuxuu guryo siiyay bulshooyinka maxalliga ah si loo hubiyo in qofna hoy la'aan noqon karin. Ilaa maanta in ka badan waxay u arkaan Escobar inuu yahay Colombian Robin Hood ah. Markii asalka hantidiisu ay noqotay mid dood dadweyne ah, Mareykanku wuxuu bilaabay inuu ku cadaadiyo Colombia inay u soo gacan geliso isagoo adeegsanaya argagixiso. Escobar wuxuu isku dayay inuu saameyn ku yeesho siyaasadda Colombia dhanka qodobka dib u celinta iyo inuu cafis u fidiyo dadka daroogada ka ganacsada. Taa beddelkeedana uu ka tanaasulo ka ganacsiga daroogada. Ololihii argagixiso wuxuu galaaftay nolosha siyaasiyiin, shaqaale dawladeed, saxafiyiin iyo muwaadiniin caadi ah. Waxay u rogtay ra'yul caamka isaga ka dhanka ah, waxayna sababtay kala jabkii ka ganacsiga daroogada. Kadib hal sano oo xadhig ah, 1993kii Escobar waxa lagu dilay dagaal ay la galeen booliska Colombia iyaga oo halkaas uga takhalusay. fadlan haddaad muuqaalka ka heshay like saar, haddaadan nagu soo biirina hadda nagu soo biir oo calaamadda subscribe taabo. hana ilaabin inaad furato gambaleelka si aad ula socotid muuqaal kasta oo aan soo dhigno. mahadsanid.